kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi aan la yeelan doono mid kamida dadyowga runtii aan aadka u xiiseeyay inaan daawado muuqaalada ay sameeyaan runtii waa qof aad iyo aad caan u ah dhammaanteena aan wada naqaano ayuub ahaan anigu si gaar ah ayaan u xiiseeyaa muuqaaladiisa waa jilaa yuusuf ceegaag oo aad dhammaantiin wada garanaysaan yuusuf ku soo dhawo waraysi gaar aan kula yeelan doono maanta ayuub aad u mahadsan tahay waa dhowahay oo markii ugu horeysay aan yuusuf ceegaag soo fadhiisanayno waraysina aanu runtii wada yeelanayno aadiya ma waraysigii kugu horeeyay sidoo kale lagaaga qaadaa mise waraysiyo hore ayaa ka soo horeeyay isfo bay wallahi waa ka sii horeeyay dee dhowr baa jiray kulli aan dadka soo fadhiisanay laakiin dabadeena waa kii ugu horeeyay aad bad mahadsantahay ugu horeyn dad iyo fara badan waxa ay rabaan ama ay jecel inay ogaadaan waa kuma yuusuf ceegaag de yuusuf ceegaag waa aniga inta waxaa waxa weeyaan de waa ninka markaa de kulli taariikh badan laga sheekiyay lama qofku markuu de kulli wax badan iyo dal badan iyo duri badan maray baa de uu taariikh leeyahay marka taariikh badan soo jiiday oo aan ka sheekiyay marihi anigu ardaynimo tujiraanimo wali aan dhaafin jilaanimada haye intaas unbay ku kooban tahay dalka gudihiisana ku siman oo ku nool balse jacayl marka qaar samaha meel kale noo baxo aadu aad mahadsan su'aasha labadan jeclaan ku weydiiyo waxay tahay waxaa jirtay riwaayadaad samaysay runtii oo aad runtii dadweynuhu ay u daawadeen aan oran karnaa waa mid kamid malaha ku ugu daawasho badan riwaayadahaaga waa riwaayad xildhibaan ku metelayso waa jirtaa bal qisada xildhibaannimada iyo waxaad ku dooratay iyo weliba magacii aan iska kaftay oo la oran jiray xildhibaan cunayar magacaad ku metelaysa riwaayada bal qisada magaca xildhibaan cunayar sidee ku soo baxday waxay ku soo baxday horta xildhibaannimadu uma taagnayn xildhibaan keliya oo qura de kulli waxaan soo gudbinaa waa wacyigelin bulshada dhexdeeda wixii bulshada ku siman dhexdeeda ka dhaca macnihii ma garanaysaa marka waxay u taagneeduun riwaayadda laba qaybood un bay ahayd oo qayb dee ka sheekaynaysa bulshadii iyo ma garanaysaa dadkii iyo dadkii madaxda u ahaa markaa waxay isu raacsaneen hadday wasiirkii ahayd hadday macnihii ahayd madaxdii kale ahayd hadday tijaartii ahayd hadday wixii xilhayay oo dhan ma garanaysaa ama foolaadkii bulshada ahaa bay ka hadlaysay weliba qaybtooda negative-ka ah oo halkaa culista kasoo gelayso moogta dee dadkii waxoodii dee ma garanaysaa si khaldan loo isticmaalayo marka taasay ka hadlaysay culistu halkaasay ka timi marka riwaayad qaabkaa ka sheekeynaysa uun bay ahayd waa tahay yuusuf waxaan jeclaan lahaa sidoo kale inaan ku weydiiyo waxaa jira ninaad aad saaxiib u tihiin inta badan aad wada samaysaan filimaanta amaba muuqaalada aad wada duubtaan isku filan saxaabka cabdiqani isku filan cabdiqani isku filan xaggee ayaa isku barateen cabdiqani isku filan waxaan isku baranay والله وقت دير بارس قرناي سي هوريي waxaan isku baranay TV qaranka barigu tartanka socday tartanka ku soo baxay kaasaan isku baranay ka bacdi adigu muddo ka bacdi waan sii dhaxlo markaasaan bilowday halkaas marka de masaaxiibo ayaa tihiin oo waxa weeye de si gaar ah saaxiib tiidin bas shaqada iyo marka muuqaalada duubaysaan baa isu timaadaan markaas shaqada ma wallahi wax badan baan isku nahayo saaxiibtinimada xitaa ka sii ballaaran de macal family baan bana daabtaan wahay cabdiqani ma sha Allah waalid baa u tahay waalid baan wahay xagga kalena saaxiib baan nahay xagga kale isku shaqaan nahay marka wax fara badan fara badan baan nahay waa tahay inta ka nimaadno waxaad iga warantaa sidoo kale yuusuf waan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo in badan dadka bulshada markaad dhex marayso waa kuwa kugu yeedhay xildhibaan hebel xildhibaan cunaya xildhibaan yuusuf dareenada noocaas ama kelmadaha noocaas maadaama ay aad kugu soo bateen adiga laftigaagu inama ku galay hami ah horeedhe bal way sharaxay adiga laftigaagu wallaahi horta inkastoo aan iminka aanay igu jirin laakiin dee waa runoo xildhibaan taa marka lagu guro xildhibaan xagga marabaa soo dhuga xildhibaan baa tahay markaasaan isu yara qaatay siira xariifiya markaasaan hadaan qaadana meesha waxba ku hayay markaasaan hadana soo digaa marka adigu wallahi way iska hawlo badan tahay laakiin se kolley imika uguma jirto mustaqbalka ma laga yaabaa inaad ku galo hami dhanka siyaasadda laga yaabaa laga yaabaa wariyadaasi ku rumowdo wariyadu de waa kolley de waa laga yaabaa insha Allah ooti aad baad mahadsan tahay goorma ayay kuugu la yaab badnayd yuusuf ahaan
la yaab dhanka la yaabka markaan u galno aynu yaabno goorma soo rarta Yuusuf wallahi maalintaas waxaad maalintii kugu leebka badan goor maalin walba waa yaab maxaan muuji inaad horto waxaan la yaabaa horta dunida waag kasta waxbaad arkaysaa waxaad la yaabto iyo waxaad ku faraxdo iyo waxaad macnihii aad tiraahdo ruuxaasa badwa ka yaabiyad arkaysaa laakiin imika waxaan ku xasuusan karaan ku raahdo walaayo maalintaas igu darnay oo ii calaamadsan ma jirto dhanka qosolka ka waran iyo farxadda goormada xasuusata dhanka qosolka iyo farxadda mar walba qoslaa Yuusuf mar walba faraxsan mar walba faraxsanayaan farxaduna wax wanaagsan oo ma sha Allah kulli aniga bulshadaas ay ka farxaysaa marka ka waran maxaa dareentaan adiga iyo saaxiibkaas ku filan oo halkan aad ugu salaamayo marka de muuqaaladii aad sameeysan ay bulshadii si fiican u gaaraan dadkii bulshaduna ay ka soo falceliyeen falcelin wanaagsan ay ka sameeyaan dareenka noocaas muxuu dareen wanaagsan oo de macnihii saray waayo anagu waxaan u dhignaa weyn bulshada gaaraan weyn bulshadii macnihii wixii sidii aan ugu talagalay ama wixii aan ku wacyigelinay ama aan ku wacyigelinay inay sidoodii u gaaraan oo ay bulshadii ka soo falceliso anaga waa farxadeeda waa tahay Yuusuf jilaanimada kadib ma jirtaa shaqo aad jeceshahay inaad qabato oo aad ka shaqeyso ama hobbigaaga waxaad xiisayso marka laga yimaado jilista aflaanta wallahi kolley dee nolosha inaan jiraaqo ku koobnaado aan jiraa ahaado weligii bulshada wuxuu jiro mid kasii ballaaran oo kasii gudaweyn insha Allah waan rajeeyaa waan hamigayga hadii la arko insha Allah laakiin ma jirtaa wax kale oo jeceshahay inaad qabato gaar sideen yani waqtiyada aad jecesh ku gaarka ah adiga ee aad haysato firaaqada ama dhanka shaqada marka laga yimaado ama dhanka kale maxaad jeceshahay qabato waxaad wixii lagu soo gudboonaad hadii maanta hadda wixii lidada soo dhacay dhanka kubadda daawashadiisa isku tii kubadda daawashadeeda isku wanaagsan kubadda daawashadeeda ma daawado waqti dheer bay ugu dambeysay daawashadeeda markaan dee waqtigii yaraantii bay ugu dambeysay dad badan ayaa yidhahda Yuusuf dhanka heesahana uu ku wanaagsan yahay jilaanimada marka laga yimaado arrintaas iyada kolley mar baan ku yara tuura jirayo laakiin fanaan ma yihiin mar baan ku yara tuura jirayo tiinayn dhuwi ma sameeyo aniga daawadayaasha laba saddex kalmadood ama laba saddex ama heesa jeceshay mid ugu luqeyn kartaa laba saddex kalmadood haddii baad awoodo midaan anigu jecelahay heesaha caadiga ah jeceshahay heesaha caadiga ah wallahi luuqda xagga heesaha anigu adiga daawadayaashu waxba idin luqeyn kara maynee ka soo su-aasha barnaamijka ka hor intaanan duubin aad bay lahay nagu adkay su-aasha Yuusuf mar labaadba kaa codsan aniga daawadayaasha waxaa iga sii fududeed adigu keena sama xasan aadan oo kale ka waran isku wanaagsantii heesaha xasan aadan oo kale dhowr heesood baan jecelahay markaan da'da jiray 15 baa kamid ah filimka sama wallahi heesaha xasan aadan hees siraad la yiraahdo waan ugu sii jecelahay de kulli war cod xumahayo xumaanteedana dibadda kan tu badan yuu jeeda oo aniga daawadayaasha ku kaayo waa inuu sida kale wanaagsanaa adeer heesta mu iska waa daal moogtaay siraade Soomaalidoydil uma sidatidu quruxdii heesahaas maasha Allah runtii aniga iyo daawadayaashu aad baan uga helnay daawadayaasha waxaan filayaa inay aad uga heli doonaan ee codkaasi aad ka wanaagsan Yuusuf sababtii aan sheegayno ma noqotay kolley aniga iyo daawadayaashu inta badan ma garanaysaa gaar ahaan Yuusuf ayuuban aad baan u jecelahay ma garanaysaa heesaha yaraad kusoo turturtay mararka qaar goobgoosada aad wado waa tahay Yuusuf xaggaad jeceshahay inaad u dalxiis tagto adigu maanu asxaab hore oo ay ka mid yihiin Cabdijabaar Gacaliye iyo isku filan waan wareysi halkan kaga qaaday hadda aan joogno magaalada Hargeysa way sheegeen goobaha jecelnay inuu dalxiis tagaan adigu xaggaad jeceshahay inaad u dalxiis tagto waxaan jecelahay halkan u dalxiis tago dee war xaggan u dalxiis tagay dee dalka dibadiisa mise gudihiisa dal iyo dibad xaggaad jeceshahay inaad u dalxiis tagto saaxiibada dalka dibadiisa iyo gudihiisa labadaba way sheegeen goobta u dalxiis tagi lahayn adigu Yuusuf xaggaad jeceshahay oo niyo xagga dalxiiska
xagga dalxiiska islaanteeda ay qaabilsan halkay ku dalxiisto ma ku dalxiisi lahaa adigu aad mahadsantihiisa inta badan iisoo waxaad filimaan ka samaysaan amaba riwaayado waaqaca dhabta ah ee bulshada ka jira riwaayad baa jirtay aad runtii caan noqotay oo aad ugu magac darteen igu sawir riwaayadaasi igu sawir maxaa ula jeedeen والله waxaan uga jeednay abaaraha imika jiro taasi waa imikay baahay oo tii ugu dambeysay dalka imika saad ogtahay meel xun oo halis u maraya abaaraha ka jira marka waxaan ka hadlaynaa abaaraha imika ka jira oo meel xun marayo dadkiina intii qofka haddaan meeshii dhex joogo oo aanu arag wuxuu ka dhigan yahay wixii inay sawirun la tahay oo macnaheedu إذا نقف بوصل مرة يودي قف كمسي بحساب واحد القرآن يا يمكن لو قف هذا كسر كسر ولا باري محل جاي ده محل جاي بلا جاي وقت دي مرة يعطت قف كور مور بيلي دي هذا ما عندك بمريسة هذا ما عندك بمريسة وحنا يمكن أنا بشيء كبرى بتشيني هذا لفت ده بشيء وحنا كبرى بتشيني ورطتك وحب بهاي قرب دق بهاي بيا الآن بتشتا حالات وقوحن أنا واش وقوه رسالة والبيا قفان بيا هاي تعمل تكون فكر كرام واي وقت كسر صدام هايتي ما كان حلاء بالشدة كود وحلاء هاي حالات العديد قاري مكيني دولة دي مكيني حسبية معارض مكيني وواحدة حق ربك عبارة وبهان iskaashi u baahan tahay gacmaha la sabsado dadka qurbaha dadkeenu inta badan ku tirsanaa iyagana waxaan leeyahay dadkeenu iyo dadkeenu meel xun ay ku sugan yihiin oo soo gurmada inaga ku dheena waxaan leeyahay war ku weyn xitaa meelaha la shaqeeya bal bisha hadii la doono inagu xitaa bisha ka yar waynu ka maarnaa inteena shaqeysaa bil qura waynu ka maarmaynaa aynu bisha bal abaara oo baarlamaanka iyo xildhibaanadu ugu horeeyeen oo golaha wasiiradu ugu horeeyeen bisha wixii aynu wax kasta aynu qaban karno qofka $1 haya waxbay taraysaa dadku wuxuu ahaa bal inta hayaan loo qaado hal isugu waxay baylaana insha Allah marka qisada ay ka turjumayso riwaayadaas qisadaasi ay ka turjumayso waxay ka turjumayso wixii inaan dheeldheel laga dhigan inaan la fududeysan inaan way qofkii ay haraadan baa sawir dadkeenu waxa laga raacay sawir baa laga raacay iyo qof weyn oo mas'uul ah arkaysaado xaaladda isagu u xil saarayo kale waan soo indhaynaayo indhaban war indhayn uma jeedaan intii waxay u jeedaan galaan inaad geeso degdeg u siiso qofkii waxaad moodaa sawir baa la inaga raacay inuu qofkiiba naftiisa sawir kala weyn yahay oo isaga waxa kala weyn halkaas oo sawirka ku soo galay qofka nooca ku sugan marso aragnay marka waxaan leeyahay dadku ma baaha xaaladda iyo macnaheedu waxa kale maxaa la yiri iyo kan soo leeyahay sidaan yeereeyay maxaynu qaban karnaa iyo kuma degdeg ay u baahan yihiin waatiyaad mahadsantahay ugu dambeyn waxa jira dhalinyar aad u daayar baa jirta jilaayo aad u yar baa jirta runtii oo adiga ku dayda oo aad u tahay qof ay ku daydaan Yuusuf fariintada halkan iyaga ugu diraysaa maxay tahay wallahi de waxaan uga dirayaa kulay waxaan waa wax de bulshada uu loo soo gudbiyo dad badan oo hebel runtaa weeyaan way jiraan kuwa badan oo aan chance u helin baa jira kuwa soo socdo soo koraya baa jira marka waxaan leeyahay toosan sida wanaagsan sanadihii u dambeeyay gaar ahaan deegaanada Soomaaliya waxaad ugu soo badanayay muuqaalada baraankiyada wax la yiraahdo barnaamijka oo runtii mararka qaar sidii la rabay si ka duwan loo sameeyo oo dadku way kala duwan yihiin oo dad baa xanuun leh dad baa dhibaatooyin kala leh halkaas laga yaabo in qofka dib lagu geysto waxa doon la oranayo barnaamijku waxa arintaas aad Yuusuf haan waa arrin xun weeye waxa soo kale anu waa wax la yaabo waxaad arkaysaa qof weyn oo qof awoogii leh hada aabihi xitaa awoogii mid leh ayuu ka hor imanaya markaa soo oranaya wax aan wax la rabo dooro kula hadlay soo doono la isticmaalaya waxa la ruuxa soo kale wax la eega karo maaha dhalinyaro ahaan akhlaaqiyad ahaan oo wax lagu xumeeyo marka waxa leeyahay xitaa wax kasto aad doonayso inaad samayso waxaan maxaad u samaynaysaa waa ama wax yar oo aad bahalkiyaad ku heshid ama fiisad ku heshid ama magacaad ku heshid ee ka xuna ku heli ka wanaagsan ku doo ugu dambeyn ma qorsheynaysaa Yuusuf socdaal dhanka wadamada jaarka ah ama wadamada qaaradaha kala duwan ee dunida adiga iyo saaxiibkaas ku filan halkaas iyo ku soo bandhigtaan riwaayado kala duwan adiga kuwa jaarka iyo kuwa shay mid ka dad watan isku wala sameeyay israacno inagu turkiga soo raacno arrinka turkiga arrinkaas isagu waa diyaar weey gudaan
jaaliyada cid kastoo afka Soomaaliga ku hadasho degan dalka Turkiga waxaan ugu bishaareynaa saaxiibkii Yusuf inuu iman doono insha Allah isku filan baan aad iyo aad halkan ugu salaamayno hadii ay beedmo inta waxa weeye aniga anigu sii sheegay aad baa iman doona runtii kulli aniga iyo toban labaatan aan asxaabnahay oo ka mid dadka sida gaarka ay ku xidhan marka halka ka warwari Turkiga aadkiis fudhay aad waa taa Yusuf aad baa mahadsan tahay riwaayadaha Yusuf xageed ka bilowday سمحك وجود لينا روايات سميسا بمقال سميسو وقف فاملي كبيرة كقولي يوسف وهبة ولا ذا واحد وقف أصحاب هذا كبيرة ما عندهم بعد رهمي بالعرض أساسي كلها والله ورمي وحن وشكل يسوون بيبيس كبير بيلعبان طبعا هم كقولي يسوون بس كبير بيلعبان موي أدو ما يروح سكول كيف كانوا بيجينوا هم بانو يلا والله الحفلة دي هي وحنا مع كسرها عي مركي دمنا سكول دي واحد سكسي ودي مركي دمنا waxaan anagu xaflad adigu markii soo gudbinteedii bulshada soo gudbinteedii waxa iga duubay riwaayadii ugu horeysay naga duubay adbaali Muuse Qaldoon oo imikana ku xiran magaalada Hargeysa leeyahay ay ku soo fuuday aamin anigu sidoo kale Allah soo fuuday xasan mataan imika naga duubayba maalintaan iga duubay aad iyo aad u salaam ugu horeysay iga duubay halkaas un bay ay bulshada ku soo gaartay mataan aniga laftiga barnaamij fiican bay iga duubay ana waxa dhaw ninka waa khatar weyn هذا بقى قريش وقد ما يدي ما ترتاح هذا هركا كحوسي سواء سلام سواء ما بقى يدون عدل هاي نرشة دقيقة كعداد يا بنو سلامية عاديات بنو سلامية عادي قاعد عندك سلامية وسلو سلام توصلوا كل دوية حسن إنك تدوي حسن إنك تدوي رواه سلامية يا أصحابك اللي تشوف تبع وحن خلاص سلام يا أصحاب تيجي عبد الغني شكفلان وكباب عبد الغني حاسس كيسي كران سلام عاديات asxaabtayda oo dhan xaaskayga familygayga meel kasta intii magacayga muuqayo garanaysa waa salaamaya aad iyo aad baan mahadsantahay Yusuf anaguna runtii aad iyo aad baan kaaga qaadnay aad iyo aad baan ku salaameynaa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wareyskan kula yeeshay maanta waxaan halkan sidoo kale ka salaamayaa saaxiibkii Xasan Mataan oo runtii iyo saaxiibka isaguna jeesto oo la jooga oo barnaamijkan iguna qayb weyn ka ah حسن متان دتكو حوي يفرق بدل مجلس لكن ما له حرجيني سجننا دتك تصو وجهيسا يسمع عقاب اديات بما سنت ساحه وقتها خالق قاعد نسيسي اديات بان runtii ku soo dhawanaya mar labaad mar saddexaad turkiga waa isku raaci doonaa aad kale laga sugaya wadamada jaarka laftooda waa laga sugaya حوي dadka fara badan baa ku sugaya runtii aad taageerayaan kuwa aad iyo aad u mahadsantahay sekiyay كل عام وكل شيء ان شاء الله هذه